وتعالى وحو بن آدم كوت الماما ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون برزخ وحو كبلا ما بي علماء يلاهدان وقيرده markay soo degto ka bilaabma ilaa iyo inta bacsigu dhacaya ama soo saaritaanku waa waqtiga u dhaxeeya baynu uga dan leenahay qabriga aynu sheegayno qabriga waxa la tilmaamaa xadiis imaam tirmidhi uu soo saaray sheekh al-albani xasan uu ku tilmaamayo Uthman ibn Affan baa waxa la yidhi marka qabri uu soo agtaago ayuu ilmeyn jiray ilaa iyo oohinta ka soo dareerta ay gadhkiisa qoydo markaas waxa lagu yidhi Uthmanow jannada iyo naartaba marka la sheego sida uma oydida maxaad marka xabaasha la sheego ama aad aragto sida tan ugu oyda dabeetana wuxuu yidhi waxaan maqlay nabiga alayhi salaatu wassalaam القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه وحن مغليبو لي النبي عليه الصلاة والسلام وله حباشه وقرقي وقهر ريي آخر حقه إذا مركا الله كعيه يعني دار الدنيا عمل كلا شقيساني ولا قتقي حباشه بيقولوا وقرقي وقهر ريي آخره ninkii xabaasha ku badbaadaana wixii ka dambeeya way ka sii fudud yihiin xabaasha se qofkii badbaadi waaya fama ba'dahu ashad minhu wixii kaaga sii dambeeyana way kaaga sii daray waxaan kaloo maqlay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh wax ka fool xun oo ka dhib badan xabaal ma narag nabiga calayhi salaatu wasalaam xabaasha wuxuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ah ee ilaahay xabaasha ugu nimceeyana ee la tusiyo goobtu jannada ka galayay iyo naartii uu ka badbaadayna wuxuu dhahaa rabbi ajil qiyaama saaca ilaahay uu dadaji qiyaamaha ama saacada dhicisteeda ilaahu soo dadaji si uu reerkiisa iyo ahalkiisa iyo jannadiisa u helo qofka kaafirka ama xumina wuxuu dhahaa isagoo lagu cadaabayo xabaasha ayuu haddana wuxuu leeyahay rabbi laa tuqim as-saaca إلهي وساعدها كعني يعني أن قيامه دعن ويوحي أوجي وحكدا بيانيك غسيل بدي قبره وميل مدو سيد النبي محمد شقي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين كويا الله إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها حبالها كني مجد أي كبو حدد كودي يكون مدويهين وإن الله عز وجل منورها لهم بالصلاة عليه إلهنا سبحانه وتعالى وحوق النورنا إياه صلاة أن كنت كذيب النبي لي عليه الصلاة والسلام صلاة داسي أن كنت كذيب إلهي سبحانه وتعالى حباش أو النورنا إياه إلهي أنتو حباش أو النور طهينا غياله حباش وحيكم يتعدلك الله يسكو اتحامه والنبي عليه الصلاة والسلام أحاديثك سقناتي وحيت المامسة مركا وقفك لديك حباشة ee laga dareero inay laba malag u yimaadaan laba malag oo aragtidooda ay aragti adag tahay aragti baqad gelinaysa hadalkoodu yahay nahar iyo dagaal oo intay soo fadhiisiyaan xadiiska qaarkoodna ay ku tilmaamayaan inay laba madmadow oo buluuya aswadani azraqan buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan munkar iyo nakiir in la yidhaahdo labadaas malag intay soo fadhiisiyaan qofka inay odhan doonaan man rabbuk maa diinuk man nabiyuk waryaa kuu rabbiya diintaadu se maxay ahayd nebigaase waa kuma qofkii alla sugaya subxaanahu wa tacaala markaas allahayna sugaye wuxuu odhan doonaa rabbigay waa alle subxaanahu wa tacaala diintayna waa islaam نبي محمد عليه الصلاة والسلام ونبي رسول كان رميسنا قفكي منافقية قال إنه وحبقرا ويدونه وأي مركاسي هبار الدونان وأنا صوبت يكف الصيران علماء آيات القرآن إلى هيلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إلهي سبحانه وتعالى قفك مؤمن كأوح قصقية القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
aakhiriya adduunba yacni waxay culammadu ku tafsiiraan inay tahay marka xabaasha la dhigo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baqa gelin kari maayaan malaa'igta tan adag ee wax dagaalayaaye waxa ay ku hadlayaan ilaahay baa ku sugaya weedhii saxa ahayd oo inuu garto inuu rabbina alle u yahay islaamkuna diintiisii tahay nebi moxamedna rasuulku rumaysnaa inuu yahay calayhi salaatu wasalaam markaasaa samada laga dhawaaqaya la odhanaya an sadaqa cabdi run buu sheegay addoonkaygii kii kale ee gaalkaana haah laa adri ilaa ay ka yidhaahdaan malaa'igtu laa darayta walaa talawt waxba garan maayo buu odhan doonaa waa yacni waxba wuu garan waayi doonaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabka inaga dhowro oo qabriga kuwa sugma alle subxaana wa tacaala inuu inaga yeelo